waxaa loo yidhi waxaad qarsadid way ku qarsadaan marmarka qaar waxaa dhacdo adigoo islaha jecelkaad badbaadi in sir aad qarsatid sirtaas ayaad waxyaabo badan ku weynaysaa halkaani waa Romania anigii sheynaan hadda kor ayaa nimid waana meeshii aniga iyada aan isku baranay meeshaan anigii sheynaa waxaa ka bilowday jecelkeena sirta qaar ma qarsoonto ee wixii sugtaa xilligii ay soo bixi lahayd maalintii soo baxdana waxaad weynaysaa jecelkaagii iyo mustaqbalkaagii amaba noloshaada anigana uma malaynin in la gaaray xilligii sirtii aqrinay ay soo bixi lahayd maxaa la sirta markaad maagtid qari ma qarsoontay wixii sugtaa waqtigaas ayay banaanka timaadaa wax walba oo aqrinaysana banaanka ayay keentaa soo dhawaada mudan iyo marwo waxaan idinku soo dhaweynaa gurigan waxaan ahay shakhsi ka socda bankiga waxaan u qaabilsanay qaybta guri bixinta magaciigana waa soo jeedo waad mahadsantahay master soo jeedo qof kale ma waa xaskii iska baro barasho wanaagsan soo gala runta haddaan idin sheego gurigan waa guri qadiimi ah adinka nasiib ayaad leedihiin gurigan waa gurigii Romaaniyiinta waxaad ka helaysaan gudihiisa waxyaabo qadiimi ah oo waliba aad ku qanacdaan hore ayaan u nimid gurigan waan aqaanaa ma sidaas ah soo gudub gurigan quruxdiisa iyo qaabka loo dhisay waa guri aad iyo aad looga shaqeeyay gudihiisana waxaad ku arkaysaan waxyaabo fara badan oo adiga aad ku qanci doontaan wixii kale oo adinka aad caawinaysaan aad ayuu qurux badan yahay gurigan waan ka helay aniga kulli waan ka helay ma ka heshay adiga okay saaxiib waad mahadsantahay adigaa mudan شينا ها حبيبي كان يا اخي راشك انا اقول يا عني ما حكوا رعي يا اخي 2 دقيقه لا يسوق aniga waxaan rabaa inaan ku dhaho kunturaadaad soo qaadatay 5 sano ayaad soo qaadatay Soomaa 5 sanana labadeena halkan ayaan ku wada noolaaneynaa sidaan maxaad igu fiirinaysaa meeshan jawigeeda waa jawi fiican haddana waa qabow saa'id ah waxaa loo baahan yahay ani adiga kulankeena inuu bato oo mar walba ani adiga aan isku soo dhawaano haday digid macanto haddii ayaan imid meesha marka hore aan la qabsano kadib wax walba way hagaagi doonaan okay maxay tahay isbeddelka balantii labadeena naga dhaxaysana maxaa isku bedeshay adiga balantaas waxay ahayd hindiya kuntaraadta kor ayaan ahayd maxaa ku dhaca adiga macnahaaga maxaa waayna macnaheedu wax kale ma haddaan imid aniga shaqo ku mashquulsana ma dhici karto maxaa yeelay 4 saacadood doonaysaa inaan kula joogo taasna suurtagal maaha wari dhageys aniga berri dambe anaaba cidla noqonayn waayo hooyo ayaa soo socoto oo halkan imaanayso waxay ahaataba kulli hadda ka nasto maxaa yeelay tacbaan ayaan waan daalana ma garatay maxay tahay isbeddelkan adiga aad sameynaysidna maxay tahay wajigan hadda ay ula dhaqmaysid ii sheeg aniga isma bedelin waan ku ogaa waxaad ka xanaaqsantahay kistan Romania ku keenay aniga taas waan iga daada waa ku bari hadalka badan iga jooji war hoosha xagga ka heesay hool adiga aad u qalantid ma ahayn sidaas darteed ayaan hooshan kula soo jeclaaday aniga inaad qabatid waad maasantahay maadaama aad la jeclaatay bas qaadana ila farta ka saacday maxaa ku dhaca adiga
maxaa sidaan oo dhan iigu qaylinaysaa markii aan go'aan ku gaarno labadeena halkaan inaan nimaano isbedel ayaan kaa dareemayaa aniga maxaad iga qarinaysaa waxaad u egtahay qof wax ii sheegi rabo haddana iga qarinaayo maxay taa dhibka ku haysta ii sheeg waxbana kaama qarinayo ee waa ku baryaa orod qolkayga dhana qolkayga aadaa waa ku baryayaa reehaan ila hadal aniga reehaan istaag maxay taa isbedelkan kugu dhacana waa ku baryaa ila hadal maxaad iga qarinaysaa iga fur ilbaabka reehaan waa ku baryaa iga fur ilbaabka maxaad igu xiraysaa ilbaabka sirta adiga aad qarinaysid ma waxay kula tahay sidaan haddaad u qarisid wax walba inay kuu xalsamaayaan waa ku baryayaa sirtaad qarinaysa labadan iyana kala fogeynin fur ilbaabka waa ku jeclahay aniga la'aantaa ma noolaan karo waxaan rabaa dhibka ku haysta adiga inaan kula qaybsado iga fur ilbaabka waxaad iga qarinaysa ii sheeg adiga maxaa waa sirta qalbigaaga aad ku qarsanaysid waa ku baryaa wax walba ii sheeg adiga reehaan waa ku baryaa ilbaabka iga fur reehaan maxaad iiga aamusantahay adiga
Stimați călători, la urcarea în tren, prezentați legitimațiile de călătorie. halo reehaan waa ku baryaaya igi soo gaar aniga maxaa kuu dhacna ii sheeg ma aqaan aniga meeshaan joogo iyo meeshaan waxaan ka soo doonay aniga way hadda xaggee joogtaa ii tilmaam xataa aan ku imaaday ii sheeg ciwaanada xataa agtaada ku yaal si aan kuu imaado ii sheeg waa ku baryaa 23 kiiloomitir ayaa magaalada ka baxay aniga bukaska ku yaal ayaan kaa soo wacaa meeshaad oo keliya joog anigaa kuu imaanaya oo ku baryaa ha dhaqaaqin haddaan ku imaanaya dhinacan ii jooji oo ku baryaa mahadsanid xaggee ka baxday kuawa waa kana fiiri meesha fadhiso maxaa kuu dhacday oo ku baryaa fur albaabka haygu furin albaabka waa ku baryaaya albaabka haygu furin aniga fur yaqa aniga waay maxaa cabsanaya albaabka haygu furin maxaa dhaca qofna ma joogo waa kaligay ninaa jooga meesha waa ku baryaaya wuxuu rabaa inuu idilo waa ku baryaaya kaar maxaa kuu dhacday soo istaag ninaa joogo qof ma joogo kaligaa joogo war ninaa jooga meeshaan aniga adiga maxaa u dhigan waa ku baryaa ninaa jooga albaabka haygu furin aniga waa ku baryaa meesha haygu qofna ma joogo maxaa waa cabsanaya waa ku baryaa ninaa meesha jooga ku dhaca aniga maqaadalkayga qofna ma joogo aniga adiga lama joogno saddex iyo 20 kiiloomitir ayaad banaan ku baxday weliba gaari ayaad wadatay aawa gaarigaaga ii sheeg xaggee ka baxay adigaan kula hadlaa maxaa ka doonta meeshaas yaasi kula socday aniga aamin waxba ma xasuusta aniga ii aamin waa ku baryaaya ma xasuusto hadal maa ugu yaraan waa inaad soo xasuustaa xataa markaad bixisay meeshaad u socotay taas haa ii sheeg reehaan meeshaan jin ayaa ku jiro waa ku baryaaya hadalkayga jin kuma jiro meeshaan ee ii sheeg oo ku baryaa xaggee aadi jin ayaa jooga gurigan waa ku baryaa isda jahay waana aniga ma ku waalaya aniga waa ku baryaaya aamin waayahe ma kaligaa baxay mase qofka kula socday ii sheeg aawe katiinkayga nikaax aawe xaggeen dhiga aniga aawe katiinkayga xaggoo ka baxay katiinkayga aawe xaggeen dhiga aniga aawe katiinkayga xaggoo ka baxay katiinkayga aawe katiinkayga waan helay waan xiran muxuu igu xirmi laayaan katiinkayga maxaa dhacay inuu i xirma eed muxuu ila xirmi laaya aniga katiinkayga waa kala daatay katiinkayga wuu daatay wuu kala go'ay katiinkayga katiinkayga maxaa ku dhacay ani katiinkayga dhan waa iga kala go'ay katiinkaygii katiinkayga maxaa ku dhacay katiinkayga waa iga go'ay aniga katiinkayga iga go'ay katiinkayga waa iga kala go'ay aniga katiinkayga waa go'ay
iga raali noqdo waa kool muhiima dhib male take your time waana daruuri inaan waan ku sugaynaa reehaan katiinkii nikaaxa ma iisoo samaysana aniga meeshii katiinadda lagu sameynaya horta waan tegey balse telefoon muhiima ayaa shirkadda iga soo dhacay sidaas daraaddeed shirkaddii ayaan u cararay reehaan sidaas maxaad u samaysaa adiga soo ima dhiwan kuu soo samaynaa wax dhibaata ma laha beri aan u laabanaya meesha waayahay mideeda kale asxaabteeda ayaan guriga ku casuumay marka haddii dhibaato aadan u arkin waan casuumaa haddii kale waa iska celinaa macnaha maya ha celinin waayo bulshada wehel ayay noo noqonaysaa okay waayahay kaal adiga saaxiib maanta aniga waxaa noo casuuntay gurigaas sida u qurux badan inana jirtid iyo weliba horumarka adiga aa gaartay soo sidaas maa waxaa noo casuuntay niyo adiyaabaa leedahay maskaxdaada iyo hadalkaaga maba islaaba adiga dhanba hadal oo keliya aad ku soo aruurtay maya saaxiib sidaas maha dadka adiga noocaadoo kale ma arkano inay isbedelaan maba habboonaba adiga sidaan hadan habboon beentaa maaha u sheeg macaani horumarka aan gaarin ninkan annaga sideednaba waxaan dabiicad u leenahay annaga horumarkeena waxaan ka jecelnahay raggeena horumarkooda marka taas ayaan jecelnahay kaal adiga dumashadii muu sheegtay reera galgal inaa ugu intaaniyo haye haddana naagta ma igu diraysa anoo ku hor fadhiya ninkan waa waalaya wuxuu rabo iska sheegaa mogtaa cabitaanka iskaga dejileen ayaa nin keenaya wax yar isugu waxaan ku weydiinaa maqaadaada iga waran ma ku kala socotaa cabitaanka waa dhammaaday ya marka hoos ayaan kasoo gadayaa soo ma sugaysiin maya waxba haas dhibin cabitaan lama maya waa loo baahan cabitaanka cawa jabeynaan ku dhaha ord macaani noo doon cabitaanka waayahay aniga katiinadda arooska agteeda waxay ka ahayd wax caadiya balse ma ogeyn katiinaddu inay awood xambaarsan tahay taasna waxaan ku ogaaday shaydaanku wuxuu isku dayey inuu naagteeda katiinadda ka furo wuuna ka furay maxaa yeele katiinadda ayadoo u xihan tahay inuusan xuni ka qaadin ayuu ogaaday sidaas daraaddeed aniga sirtii aan qarinayo o dhan dibadda ayay si tartiiba u imaaday taasna waxaan ku ogaaday markaan dareemay naagteedii si tartiiba inay iga dheeraanayso maxaa yeelay naagteeda iyo aniga waa isla joogin oo keliya mooye ayada jidhkeedu dhan shaydaankaas xaggiisa ayuu jiray waxaana dareemay jaceylkii inaan waayo oo si tartiib ah oo iga fogaanayo waxaanoo dhanna waxaa u sabab ah sirtii in muddaa aan qarinayay runtii sirtaas aan qarina waan ka shalay aniga waxaan ku weydiinaa saxaabo katiinad maaragta macnaha xafiisan joogaa katiina macnaha katiinadii oo nikaaxa oo naaga loo xidhano maya katiina ma arkin laakiin makuu jiraha ii sheeg mudane maya oo maasanta ana raadinaa yaab waay mudane telefoona ku yaala mudane waa lagu soo wacay
askaraye sidee u jiraan ii sheeg bal Mr. Kanna soo adiga maahan xawaaniga in Caleb in Mr. Kanna gaarigan Soomaa gaariga ka maqnaa ee aad raadinaysay haa waa gaarigii aan raadinayay waa asagii anaga kuma siin karno maxaa yeelay meeshan sharci ayaa ka jiro marka waraaqiisa waa inaan soo siixnaa kadib ayaan ku siin karnaa marka waa inaan marka hore saldhigga tagnaa Shayna waa maxay waxaan foolxumada samayn soo maxay ii sheeg ka kac meeshan maanta dareenkayga waa saa'id weligeyna dareenkanoo kale ma dareemin aniga hadda ka kac qabowga gugelin maxaa kuu dhacay qadiga kacno adiga baabuurka meeshana aniga markaan katiinka haystay baabuurka waad heli weysa adiga baabuurka markaad heshana katiinka ayaad lumisay adiga waxba ma xafidi kartid xataa xiriirkeena ma xafidi kartid adiga xiriirkeena calaamadiisa xataa ma xafidi kartid adiga روحان soo gudba bal qofta aniga hore u yaabanaa balse hadda wayba ka darta ayadoodan maaqa waxuu ku sameeyo maxay uga dari weysay waxaasoo dhan idinka ayaa sabab u ah maxaa yeelay laba qof oo isqabto oo haddana laba qol seexanayso wax macquula maahan idinka nin naag isqaba ayaa tihiin maxaa kalifay inaad laba qol kala seexataan aniga waxaan arkay ayadoo qol kale ka soo kacayso marka problemka dhexdiina yaala maxay tahay ii sheeg adiga arrintan waxaa macquul inay khaas u tahay hadday khaas tahay annaga maxaa alisaydaa naloo wacay ii sheeg maxaa meesha naloogu wacay dhibkan maxaa dhaliyey ii sheeg aniga war haddii aad doonayso noloshaada inayd hagaagto marka hore waa inay hagaajisaa xiriirka labadiina iska daa saaxib way saxan tahay ha hadasho aniga waxaan ka xumay dhibaatadan sida ku timid ilaa hadda maba fahansaniba waa yaabana noloshiina iiga sheekee aniga markii hore hindiya ayaan ku nooleen meeshaas ayaan aniga shaqo yar ka hayay ayada ay waxuu ku liftay halkaan inay imaano anigana taas marnaba raali kama ahayn marka sababta dhibaatada keentay waxaan u malaynaa inay taas tahay maxaa yeelay imaanshaha meeshaan aniga marnaba kuma qanacsaneen inta markaa imaanana waxay iga codsatay siday uur ku qaadi lahayd garab inaan ku siiyo balse taas aniga waan ka diiday maxaa yeelay aniga raali kama ahayn
sidaas ayaan u malayn dhibaatada inay keentay wax kale ma adiga maxaad u diiday inay uur ku qaado ii sheeg haa hadda ayaan fahmay ilaan waxaa labada qol uga la seexanaysaan adiga waxaad diidan tahay inay uur ku qaado soo maahan adiga xaaskaada ma jeceshaa shaka kuma jiro maxaa le waa noloshayda shaina dhib weyn ayaa haysto aniga way ii sheegtay arrimo ku saabsan gurigan waxay igu tiri gurigan jin ayaa ku jiro ayada baqdin badan ayaa ka muuqata indhaheeda marka ma aqaano shaina garab in la siiyo ayay u baahan tahay ayada aad ayay u dhibaataysan tahay haa waxaa macquul ah waxaan cajalada isku xirtay inay tahay marka dhakhtar aan geyno oo maskaxda ay sida loo fiiriyo dhakhtarka haddii aan geynin waxaa macquul in wax kale laga soo sheego cajaladaan maskaxda idii ku may saaxiib taas lama baahno midna ogow adiga waxaad ogataa qofka jiinka arkaya inuu suwaalnayn ee waxa waalan qofka hortaagan aan arkaynin aniga naagteyda ayada i hortaagan ayaan arki waaye aniga ayaana cidleeyey oo meel cidlaa ugu tegey waxay rabtay inay ila hadasho oo waxay sheegto balse aniga ayaa dareemi waaye balse hadda waxaan ku qasbanaa wax alaalay waxay rabtay inay ii sheegto hadda kadib inaan ka dhegaysto saaxiib hadalkaada runtii waa sax laakiin arrintan hal qof oo keliya garab lagu siin karo reexam soo matid adiga haw aniga barasho wanaagsan oo wacan kaalinkan yo aniyo ninkan indhaha ayuu la'yahay laakiin habka jinkii loola hadlo ayuu aad u garanaa waa nin jin la hadal ah bakeeriga aaway waa kana bakeeri anigaa wado waa kan qabso laakiin xujir aniyo ninkan bakeeriga waxaan uu keen ma garanay adiga wuxuu yiri qoftaas bakeeriga ay isticmaasho ii keen ninkan bakeeriga markuu gacanta ku dhigo wixii haysta meesha laga haysta wixii ku dhacay hore ayuu ka sheegayaa waan dareemi karaa 2 bilood maxaa kuu dhaca adiga waa jin weliba waa jin weyn naagtaada jirkeeda waxaa ku dhex jira jinkaasi maxaa ku hadle naagtaada jinkaas ayaa adeegsanaya jirkeeda dhan asiga ayaa ku dhex jira guriga may joogtaa may way maqan tahay agaag ilaa intee in la eg ayay maqnaanaysaa ii sheeg ilaa iyo 2 saac shoobin ay soo samaysanay ayay saaxiibtida ay saraacay shaynaa fiiri labiskan soo aad uma qurux badno shaynaa sariirta ee seexad igey si aan u helo waxyaabaha ay ka baqayso iyo xaaladaha soo wajahay si aan u helo waxaad ii keentaa shay ay u badan tahay isticmaalkiisa muhiim ayaan dhegayso shalladan waxaa ku jirto awooddeedoo idil waxaan rabaa inaan ka dhex arko shaynaa waxay arkayso iyo mar walba waxyaabaha ay maqlayso middeeda kale waxaad ogaataa arrintani inay tahay mid shaynaa aad iyo aad loogu soo jiito haddii aan anaga gacmaha la galnana waxaa laga yaabaa inaan xaalado fara badan kala kulanno adigana waxaa muhiim ah inaad arrintan wax badan ka fiirsato adiga lee xaqiiji taas mahadsanid
halo halo rihaan shiina sidee taana gabar waa qaylisay wayna soo carartay wayna isku dadarsatay guriga dhinaciisa ayay u soo carartay waan ka xumahay ما قال هذه ستانا ما وفعله nasiib daro aniga intaan kadib hawshan ma dhammaystiri karo wixii warbixinana halkan ay ku qoran yihiin hooda anigii reehaan 3 beri ayaan rumaani joognaa nolosheennana way isbeddeshay waayo wejiyadii aan ku aqaanoo dhan waan ka waayay aniga mar walbana wuu i cidleeyaa wax markaan maaga inaan fahansiiyana mabay fahmaya asaga weliba arrinta cunuga waan kala hadlay aniga laakiin waxba jawaabay ma siinin wuu i cidleeya asaga noloshaydana cidlo ayaan dareemay
waxaan rabay aniga hurdada inaan ka kiciyo oo wax walba aan u sheego laakiin haddana dib waxaan u xasuustay haddaan wax u sheego inuusan fahmaynin anigana waxaan isku dayay arrintan inaan caddeyn u raadiyo markaan caddeyn u helana asaga inaan tuso midaas ayaan rabay aniga waxaan rabaa kaamera mugdi aniga aan ku duubo hadhowna iftiinka ii soo saarayso midaas ayaan u baahanahay waa la helayaa kaameradas magaceeda waxaa la yidhahdaa night vision aniga ayaa ku tusaayo sugan yar wax faa'iida ma laha waxa aad rabtid kaamirada inaad ku duubtid kaamirada kuma soo qabanayso adidiya ma adiga waa aniga adidiya iga dabahar adiga maxay tahay dabagalkaad igu haysidna waxa ku ran aniga inaad iga hartid waayo maxkamadda waxay adiga kuu sheegtay 100 tilaabo inaad dib iga digtid dad iga dig weysana waan ku xirayaa aniga waan ku dacweynayaa haddii aan kaa dheeraado adiga sidee xornimo ku helaysaa ii sheeg waa ku baryaha ii soo dhawaanin reehaan ha ku aamin ama isku aaminin aniga wax walba waan ogahay waxaan kaloo ogaa gurigaaga mugdi inuu ku jiro noloshaadana ciriiri ay ku jirto marka waa ku baryaa jaanisisi aan kuula hadlo adiga 10 daqiiqo kaliya jaanisisi hadalkayga haddii uu ku qanci waayo waan kaa hortegayaa ballan waayo wejiga dambena dib uma arkaysid ee waa ku baryaa hal mar dhegeyso tobanka daqiiqa hadda ayay ku bilaabatay aniga adiga runtii nolol aad iyo aad u saraysa ayaan isla soo marnay qalad weyn ayaan kaa galay adiga runtii jacayl fara badan waad isiisay balse aniga ayaa waxaa noqday qof aad iyo aad u xun balse hadda sidii hore miyi anigu waan isbedelay dabeecaddeedu dhan waa bedelay dhaqankii waa bedelay aniga noloshaada hore iiga sheekee kuma dhihin aniga maba ogeenba adiga romania inaad timid bal fiir hadda adiga romania ayaad dib ugu soo laabatay weliba guri ayaad ka degtay noloshaadu dhan xataa way isbeddeshay adiga reehaan 2 qol ayaad kala seexataan guriga aad degan tahayna farxad kuma qabtid mar walba jin iyo waxaad arkayn ayaad aragtaa hadalkaasoo dhan ma been baa ii sheeg wax walba aniga waan ku riyoodaa had ii sheeg adiga labtobka maalin maalmaha ka mida dhiig soo kuma aad arkin ii sheeg hadalkaas haadhe waxba naga qarinin aniga adigoo keliya ayaan kaa naxaya markaa ku baryaa ii jawaab maxaad la aamusan tahay wax walba ii soo warmeen anigoo kaa fog ayaan wax walba dareemayaa noloshaadu dhan way ii soo sawirantaa aniga adiga sideed ku ogaatay adiga arrintan ii sheeg maxaad ku ogaatay ii sheeg adiga sideed ku ogaatay adiga waxaan oo dhanna sideed riyo u aragtay wax walba ayaan ogahay xataa waxaan kala ogaa cawada wixii adiga kugu dhici rabo markaa ku baryaa isku daynaya mintid hal mar oo keliya jaanisisi soo bax iraac aniga ayaa wax walba kaa dhaadhicinayo waa ku baryaa aamin hal mar oo keliya aamin waa ku baryaa igu karsano aniga waa run hadalkayga waa ku baryaa aamin soo bax iraac soo bax war aniga wax garaba kaagama baahni iga leexaan ku dhahay ii dhegayso rihaan hadalkaaga ma aaminaya balse aniga waan aaminsan hadalkaaga haddii uusan hadda aaminin waxaa laga yaabaa mar kale inuu aamino iga qalay wax garab kaagama baahni adiga maxaa kugu dhacay ii dhegayso aniga waxna oga xataa caawa wixii kugu dhici raba adiga marka waxaan rabaa garab inaan ku siiyo ee waa ku baryaa soo baxi raac ma raba arrintaas inaad ii sheegtid reehaan kaale waa ku baryaa waxaan duubaan rabaa inaan ku tuso kaale waa kana
sug anaa ku tusaaye aawe sug yaa 2 daqiiqo la isug waa ku baryaa waa kana intuuba ku jiray aawe aawe waxaad tusaysay wax yar le fursad isii aawe xaguu ku jira isaga waa kana si fiican fiiri aniga waa intaasay yaqay hadda shaqaanada koori waa inoo mar kale duraan waa ku baryaaya sug waan arkay aniga idiga walaali waa ku baryaa kaale istaag aniga hadalkayga aamin gurigan jin ayaa ku jiro waa ku baryaa maxaad ii fahmi laada adiga markaa rabo wax walba inaan kuu sheego maba ii fahmaysidba gurigaana ma fiicno jin ayaa arkay sooma weliba qolka dhexdiisa sariirta hoosteeda ayuu galay sooma ها سرت هستيد أيو قلای وكبريا جورجا نجر جورجا جوري في عن معها جن أيه أيوة والله تخفي حتى كور هندي أيات النجاة روماني نجي روماني مركب ماذنا واحد تقولي أنا نجرت سما إيش شركة عندها ناكتي تقولي أنا على جدي وكجري تلها نجوري جمالها ورالي لعبت أي شركة شفتها العقد إيجارك ما قرأتي مركب وال الوضع ولا تعديقة وكبريا أديك محد يفهم الأذان aniga waxaan rabaa waxa indhayga ku arkay inaan ku tuso adigana mar walba ma ifahmaysid ala kulli xaal aniga hadda shaqaan ka dahay waana ka tagay ee adiga nasow kaliya waa ku baryaa raan istaag muxuu ifahmi laayaa asaga aniga waxaan ku sheegi karaa caawa wuxuu kuu dhici karaa xataa ee hadda ma ku sheega ii sheeg si walba kaamira aad u qaatid كاميرا سوي حطتوي هذا كريه يا أركي كرو عيد كلام أركي كرتو ما فهمت هذا كيجا جينكو سيسا وحوك على بحالة منو نوع حربا إنه ضدك بلادك كأرجسودو نوعنا ضدك بلادك وقت بقى وكليه حتى نوع عن ونوع دونايو أرجو شو wax kale uma socdaan inay argutaan oo kaliya ay u socdaan marka waa jinigaasi jiniga guriga ku nool adiga waxaan wax kale maaha riimeed ku aragtana haddii aan ka guuro ka waran guriga faa'iido ma lahan taas adiga guriga doontid waa degi kartaa balse jinkaas wuxuu rabaa adiga jidhkaaga inuu guri ka samaysto wax kale uma socdo si walbaad uga caratid ama aad u dheeraatidna marnaba taasi ma dhacayso mana ka dheeraa kartid ee waxbana haysdaalinin jinkan dantiisa inuu gaaraa oo kaliya aniga jinkaas muxuu iga rabaa maxaana ka sameeyay aniga maxay tahay sababtu iga argudanayna jinkan wuxuu ku dareensiinayaa in uu jiro oo kaliya qofka oo rabo inuu ka arsadana adiga maahee waa odagaaga reehaan qaladuu ka galay muu rabaa inuu ka arsadana hadda maxay tahay qaladku ka galay Oh God. ووري أديديا عيار عصبة بيلا ديليساي معناها شاكدات ما بلاودنا يا أخي كفتن كي قد أفاديك سيدي أهل ليس هذيك أنا هلك يا جوارون حتى بنتها وحيابها كورة على عنك سيدين كو قاعد يشك حتى هذا كقف بعض وشيء أنا مركزين كو قاعد يشك حسابتن marka ku bariya isku day hadalkayga inaad fahantiid adidiya warkaan oo dhan iga jooji aniga adiga waxaad rabtaa reerkayga inaad iga dumisado ninkayga ugu dirtid maya aniga mar reerkayga inaan burburiyo ee waxa dhacaya rabaa inaan ku sheego bariya ninkayga wax qalad uu leeyahay ma lahan sir uu iga qarinaayna waarun ninkayga dambi weyn ayuu galay sir ayuu ka qarinaya wax uu iga qarinaay mal arrintan iga jooji wax walba dhacayna reehan madaxiisa ay u dhacayaan aniga waan ogaa reehan sirta uu ka qarinayo marka adiga ma doonaysaa inaan kuu sheego sirtaas ii sheeg ma doonaysaa ma jeclid ma inaad ogaatid maya ma rabo wax walba inaan ogaado waayo runta aniga ayaa og adiga ayaan kaa soo fogaaday kala fogaashada aan labadeena kala fogaanay ayaad ka xuntaa waxaad rabtaa dib inaad ii ceshatid adiga
ninkaaga reexan sir ayuu kaa qarinayaa reexaan haa cawadan laba qol baan kala seexanaynaa labadeena haa maxaa yeelay shaqo ayaan ku mashquulsanahay marka adiga qol kale iska seexo ina dulqaad maalmahan oo keliya waa wax yar waayahay aniga reexaan ayaamahan ima qiimeeyo hadalkiisana waan fahmi lahay aniga maxaad ka wadaa adiga hadalkaas saaxiibay adiga ma aaminaysaana haa waan ku aaminsanaha aniga zaa'id ayaan kuu aaminsana inkastoo shakada jinka aana aaminsanayn aniga laakiin adiga waan ku aaminayaa laakiin saaxiib aniga waxaan ka jeclaan lahaa sidaad adiga wax u aragto inaad wax iigu sheegto adidiya waxaan diyaar u ah wax walbood ii sheegaysa inaan kaa dhagaysta aniga waxaana rabaa sirta oo ninkayga iga qarinaayo inaad ii sheegtid haddii aad og tahay sirtaas ayaa muhiimiya aniga wax walbana waan kaa dhagaysanayaa ii sheeg midaas ayaan kaa codsanayaa reexan waa dilaa qof ayuuna dili waana ka xumahay maadaama aad ka naxda arrintan intaad adi bamba dilin ka hor ayuu reexan qof dili taas ayaan ku wadaa aniga ruuxaantaas ayaan adiga ku daba taagan oo doonayso inay kaa argudato waa qofkii la dilay ruuxaantiisii reexaan maa qof dilana aniga midaas ma aaminsani aniga runta taas waan aamini waayo balse hadda waxaan ku khasbanahay inaan ogaano runta waxa ay tahay iyo sida reexan dilaaga oo ku noqday hadda runta ma ogaan karnaana haa waan ogaan karnaa maxaa yeelay aniga waxaan ku riyooday reexan dharkiisii u dhig leh inuu gurigaas ku qariyay weliba waa gurigii adiga hadda ka hor aad deganaa jirtay gurigaasna waxaan maqlay in dib habeen lagu sameeyey riyadeed haddaysa qaldaneenna dharkaasi waa heli doonaa maxaa yeelay gurigaas meel ka mid ayuu ku qariyay gurigaana cid walboo degto adiga gadaashaa way ku nagaa weysay qof walboo degana 2 bilood kadib wuu ka guuraayay hadda inaan gurigaas tagnaa haddaan tagna wax walba waan ogaanaynaa sir walboo qarsaneedna waan ogaanaynaa ilaa hadda dharka magacaaga maad ku qortaan sida ciyaalka iskuuleeda oo kaleeto nagadaadii ciyaarta shayna maxaa kuu dhaca adiga xaggee jirtay sheeg teleefoonkase maxaad iga qaweysa maanta anaan ku soo wacaayay shayna ilaahda wax dhibna miyaa jirana ii sheeg maxaad looynaysaa adigaan kula hadlayaa shayna shayna fur albaabka waa ku barya ila hadal shayna ila hadal maxaa kuu dhacay ii sheeg wax kuu dhacay shayna ila hadal waa ku barya hal mar ila hadal shayna codkaaga inaan maqla ma raba aniga shayna idhegeyso
igalaal noqo waqti qaldan ayaan kuu soo galay bannaankan kuu sugaa shayna anigu safar baan ahay weliba isla hadda ayaan rabaa inaan baxo gobor waayahay mi weydiinaysid ma meesha aadayo maya maxaan kaa weydiinayaa adigaba iima sheegayside waayahee ilaa basajada xataa ma ii geenaysid shayna shayna xaddaas oo okay maaha adiga taada se okay maahano sidee ta adiga xaaladaada waxaan u malaynaa wax cajiibla inay jiraan ma i weydiinaysaa mise waad ii sheegaysaa kule isbeddel baa jiro waxbaad iga qarinaysaa su-aashaas adiga haddaan ku weydiiye ka waran rihaan waa baxay muddo 2 berina wuu maqnaanayaa asaga hadday sidaas tahay hawsheena waa inaan soo gabagabaynaa labadan maalin labadeena shayna haddii aad rabtid haddaba dib aa u laaban karnaa baaritaankan maxaa yeele waxaan ka baqaa adiga inuu dhib ku yimaado amaba aad ka naxdid aniga ma cabsanaayo waxaan rabaa sirtuu iga qariyey inaan ogaado aniga midaas ayaan rabaa muhiimaddeydana waa sirtaas inaan ogaado inaan cabsadana lagama yaabo sirtaana noloshayda ayay muhiim u tahay si aan u ogaano reexaana cidda uu dilay waa inaan u tagnaa naag jiinka la sheekaysato naagtaas ayaana wax walba ka ogaan karnaa waayahay adig isdeji cabsi iska daa wax walbay dhammaanayaan okay caadi iska dhig haa waa run way jiraan 3 jin ayaa jirto oo adiga weliba ku ceersanaayo su'aal kale miyaad i weydiin rabtaa adiga aniga ninkayga qof muu dilana midaas ayaan rabaa inaan ku weydiiyo turubka hal xaba ka baxso ninkaaga sir ayuu kaa qarinayaa waa gacan ku dhigile qof ayuu dilay isaga wax walbo si cad ayay iigu muuqdaan aniga qofkaas qofkuu yahay ma ii sheegi kartaa adiga ma qof xiriir kala dhexeeya yuu yahay qofkaas waxaan rabaa qofkaas inaan ogaado waa jiraa jinka waa jin weyn wuxuu rabaa inuu adiga kula haado aniga halaa kadib wax meedeen fiiri kar lacagtiina qaata iga taga baxa ordaha iga taga iga baxa qolka jinka wuu jiraa waa jin weyn aniga ayuu nafsadeeda khatar geliye iga taga baxa baxa hoo lacagtaada bax iga bax bax ayaa ku dhaha ii taagnaana soco kafee meelaan ka cabeynayna keen
waayahay kafeegan yacab mahadsanid adiga ma cabaysid miya maya maxaad ka fakaraysaa ii sheeg aniga maxaan ka fakaraa wixii saxa iyo wixii qalad amaba kala sheegi karo adiga meeshaan inaad iskaga tagtid waaye sababtoo naftaada khatar bay ku jirtaa inteen aada aniga oo ninkayga uga dheeraadaa hindiya maad iska ilaabatid maxaa dhacay sideen hindiya uu laabanayaa aniga waxaan ballan ku qaaday ninkayga marnaba inaanan ka dheeraan maxaad uga fikiraysaa ninkaas asagoo sirtiisa oo kaa qarsaday adiga meeshaan iskaga tag aniga ayaa tigid ku soo goynaya cid ka ogaanaysana ma jirto meeshaad aadaysid marka bax badbaadi haddaan is iraadana aniga runta ma ogaan karo haddii aan runta ogaadana waxaa macquula nafsadeedoo dhan inaan ku waayo anigaaba qasme waaye mid ma dooratid adiga maya aniga runta ayaan dooranayaa rihaan maalin maalmaha ka midba asaga ayaa runta ii sheegaya waddadan aan runta ku raadinayna adiidiyaa waa inaan iska dhaafnaa oo meeshaan ka tagnaa middaas ayaa ila wanaagsan aniga soo ma baxaynana maxaa ku dhacay maqaan bartadaan fiirinaya ii kale waxay sii fadhi anaa soo fiirinaya maxaa ku dhaca gaariga ii sheeg matoorkii halaabe oolidii banaanka keenay ciladaana lama samayn karaa hadda maxaan samaynaynaa sideen ku baxaynaa halkan ayaan seexanaynaa maxaa kaloo samayn karnaa waa ku asbanaynaa meeshaan jiifna caawada aniga ma rabo ninkayga inuu iga shakiyo waxaan rabaa intuu maqan inaan guriga taga aniga waayo waa daahsanahay waay maxaan sameynaya gaariga cilad hadda la samayn kara maa mideeda kale ninkaada waa maqan meel dheer uu jiraa intuu siimaan ka hor aniga ayaa guriga ku geynayo maxaa kuu dhacay maad yaamintid waa ku baryaa aniga igu kalsoonaa wax dhibaataa kuma geysanayo haa waa run iyaamin waa ku baryaa marmarka qaar waxaa dhaco qof aad aqoon u lahayn inuu garab ku siiyo oo weliba uu ku caawiyo laakiin aniga waan kugu kalsoonahay adiga qofaan adiga ahayn kuma kalsooni qofka keliya aan ku kalsoonaa waa adiga marka hore subax wanaagsan kadibna waxaan kuu sheegay gaariga inaan diyaariyey oo aan beri baxayno ee isdiyaari
aniga ilaa hadda waxaan la yaabana oo aan fahmi lahay sheena hotelkaba joogtay wax waday oo geeyay meesha telefoonka taas ayaa ilaa hadda la yaabana sidee u jiraan wax dhici kara ma waxaan maqlay aniga wayaab adiga qof ma dishay ii sheeg maxaad ku hadlay waxaan ku dhahay qof ma dishay adiga maanta haddii adiga wax walba aan noo sheegin annaga garab sidaan kugu siinaynaa waaya maxaan ii sheegaa waxa soo been cidaan jirin ma jirta habeeraatee waa khuraafaad adiidya ayaa waxaan odhan ka dambeeyo waxaana wuxuu sameynaa wax kale maaha xaaskayga ayuu rabaa inuu la wareego maxaa yeele isaga hore uu jeclaa jiray taasna kama ogolaanahay aniga ninkaas waxaa maleeyahay waa jinni amaba jinniga ayaa la shaqeeyo amaba sixiroole uu tegey mar haddii derbi la jibiye dharkayga laga helay macnahayga maaha aniga dilaa inaan ahay dharkayga qof kasta ayaa intoo laba daayada tago ka qaadan karo kadibna dad ku dili karo marka adinka isku day inay fahantaan ninkaas ayaa wax ka dambeeyo maxaa yeele ninkaas waa khiyaanoole waxaan rabaa qoftaas inuu la wareego aniga wax baxay daran shiina sida ninkaas ku aamintay ayadoo taqaano inuu yahay nin beenlowa oo khiyaano ah hagaag arrintan waa macquul mar haddii asaga arrintan uu sameeyey ayadana waa ugu sheekayn karaa inuu waxaan asaga riyo ku arkay waa arrin macquul ah maa inaad diidaan waa maxay ciyaartan noocay doonta ahaata ninkan waa inaan raadinaa kadibna gabadha maskaxda waaya maxaa sameeyaa ma intaan u tago ayaan laga qabsaa u dhahaa naagteeda isii taas ma dhacaysad ninkaas inaan u tago iska daayo waxay igaysaa sixirkiisa isagaba inaan burburiyo oo aan baabiyo isagoo dhan taas igaysaa aniga ma aha midaa awoodi karta adiga waayahay yaa samayn kara ii sheeg shayna way hurdaysaa ayaan la kicinin jinkan jini aad u weyn waaye jinkan jin ciyaar maa khatar waaye mana loo dhabaa karo awoodas leeyahay wax walbas leeyahay jinkan jin loo dhabaa kara maa waan ogahay middaasi waa sababta adiga aan kugu imaanay maxaa yeelay gabadhan shaynaa la yidhahda arrinteeda meel xun ayay maraysaa haddii aan hadda wax ka qaban weyn waxaa laga yaabaa inay u dhimato adiga keliya wax ka qaban kara horta taas ma laisku diidana ana keligayga inaan wax ka qaban karo ma la diidano laakiin waxaa laiska rabaa gabartaan sababta jinkan as ugu imaade oo as usoo dhexgalay asalkiisa meeshaska imaade iyo wixis usoo racay iyo danta aas leeyahay iyo wixii laga haleeyay inaan la ogaada laiska rabaa dhibaa jiraa jinkan loo geysta si ani uma leeyahayo sheekada ma yaro dhibaa jira ah muxuu yahay dhibka jira anaa kuu sheegaa dhibka jira waxaas yahay makasee jinkan horta hadda anaa la hadlaayo waa la soo dejiyaa wixii dhib asqaba usaa sheegaayo waxaa idinka laakiin iga rabaa wax walba markiino iyo codkiisa inaa ii duubtiin si waadax ee igu duuba waaya aniga ku duubaayo jinniyow ciyaarteen hadda bilaabay waa ishayna ani ad maanta ma kala bixiinaan ku dhahay jinkan jin weyn waaye laakiin sii kasta is u weyn yahay jin anaga iga khatar badiyey maba jirtaba waa loola hadlaa usoo dhan waa la soo bixiyaa arka waryaa jin maxaa rabtaa
إلى هذا المحاكو ترى المحاكو كيني gabadhan maskiinta ee maxaa u wareerinay maxaa nafsadeedii nolosheedii ugu dheelaysaa maxaa rabtaa sheega dhiig ma rabtaa cuud ma rabtaa barfuun ma rabtaa wixii rabtid sheega haddaa lagu keenaa gabadhan ka bax ee ila hadal maxaa ku keenay gabadhanne maxay kaa galbatay maxay kugu samaysay yaa tahay adiga isheeg intee ka imaatay jamal jana naasa hablood ma ka imaatay intee ka imaatay buurtee ka imaatay wixii xaqaaday waa lagu siinaa sheeg waxaa lagu suubinaya intee ka imaatay awooddaadana intee ka imaatay sheeg maxaa u baahan tahay ila hadal haddii kale waa kuguba adiga dhan waa kuguba kaale fadhiiso loo baahaya si camal fadhiisa ah war aniga wax bannaan ah iishina fadhiisa ay dhihin haddii aa cabsanaynin bannaanka iskeen yaa tahay isku ka sheeg maxaa isku qarinaysaa bannaanka iskeen haddii awood aan leedahay oo karaama aan leedahay inoo bannaanka isku ka sheeg yaa tahay kaale wale kaale waa kuba haddii kale kaale gabadhaan maxaa ka rabtaa hadal wixii xaqaada waa lagu siinaa gabadhaan nolosheeda ha ku dheelin maxay kaa galabsatay intee ka soo racday ii sheeg maxay kaa galabsatay maxaa ka rabtaa hadal waxba haya aamusan haddii kale waa kuwa adoo dhan karaamadeeda intaan la soo bixin waxaa ku roon gashid bax baan ku leeyahay jino waa ku roon tahay kuwa haddii kale ila hadal bax mehe ila hadal maxaa u dhuumanaysaa ii sheeg haddii awood aad leedahay wejigaada la soo baxay oo runta ah gabadhaa maxaa iskugu dhex qarinaysaa gabadhaa maxaa ugu dhex dhuumanaysaa soo bax wejigaada tus wejigaada inaan arkaan rabaa aniga haddii khatar aad tahay aniga haddii ii karaan badan tahay oo lagu arkaa soo bax wejigaada itus gabadhaa maxaa u silcinaysaa waryaa wejigaada hataa itusi soo ku guba wax ku roon waaye karaamadeeda intaan la soo bixin haddaba wejigaada tus bannaanka u soo bax bannaanka iskeen beenlow baad tahay loo baahaysa camal diigu baad tahay si fiican baan kuu qaanaa aniga ma waxaad ii malaysaa dadkaad beent ku sheegaysa waa khiyaanaysa waan kuu qaanaa si camal maxaa isku hadlooyaa kan us ani ma tug waa ku kuwa ma joogto ama tug igu tilmaamta maanta ya si fiican ayaan kuu qaanaa farayn ayaad ku dhahaa tug baad tahay qayaacnoola ah waxaad ii malaysaa dadkaad beenta u sheegaysa horyaa wax walbo adiga aad samaysay iyo wax walbo aad samaynaysid xataa waan la socdaa aniga maxaan soo biin waryaa hoy wixii rabta ma iska sheegaysaa jinaad tahay lagu dhaa bismi war waxaan waxaas og yahay bas waan ku aqaanaa qayaanoolaad tahay haddii nadagaa tahay imow aniga xaggayga imow kaalay waxayga qaad awooddaada bannaanka keen kaaliska ka celino maxaad xaggala taaganta oo la baqaysaa ii sheeg imaw aniga waan ku aqaanaa balse adi aqoon ima lihid aniga waraa hoo joogaya waa kuu roon yahaya reer jamal jana kuwa hadda kor aabee baa qaayantay aabee ma taqaanaa aabee waxaa la yidhahdaa luujito adiga baa qayaanay anigana kuma dhaafaayo ee kaalay car xaggayga imaw soo soo maxaad la taagan tahay maantana waad badcinaysa anigana waan ku dhegaysanayay maxay tahay maad habashid dhaqso iska kaa celi soo soco maxaa kuu dhacay ragnimadaadii miciye xaggee baad u xeratay waa baxay jini ma daaweeye bas waa jini dambe afkeen ba laga maqlaayo aniga jini yaa la dhahaa
أنا مقعي يا باي وحيقي يسيب جيني دم بديلي مقلبة جيني أنا نقول ماشي جيني عصري يا لما كوا بحي أنا جيني أووينك يا جو adiga waxaad doonaysaa naagtaadii iisha waatanaa qabso badbaadso way soo dhacday naagtaadii ay badbaadi iga celi riyaan ninka iga celi aniga riyaan dadkaan iga celi way garaacaan si xun ayay ii garaacaya waa ku baryaaya badbaadi waa ku baryaa dhibkaan iga qaad dadkaan iga celi riyaan adigaa badbaadi karay badbaadi adiga waxaan oo dhan adiga ayaa og waa ku baryaaya badbaadi sidaan maxaad igu fiirsanaysaa anisoo xaaskaaga mii wax walba adiga ayaa og ii badbaadi aniga waa ku baryaaya badbaadi aniga si xun ayaa lii garaacaya waa ku baryaaya badbaadi wax walba adiga ayaa og sidee wax u dhaceen adiga ayaa og waa ku baryaa iga celi aniga waxaan way garaacaan هوي كالي معاك دار ريحان كالي بي إلى هذا بس كده ما اسمع يعني وين قلت لسه انت كفن سلع رفاسكم يجري كره انا كمان قلت لسه واحد فاضل تو حسمي ما قانو انت كفن ما تلقى كره انا aniga wax walba waan ogahay wax walba dhacayna aniga dartay ayay u dhaceen waxaan dhacay oo dhanna aniga ayaa sabab u ah waana ka xumahay naagteeda dhibaatadii ku sugan tahay hadda runtii aadana waa xumahay mana aqaano waxaan sameeyo sheenaha hadalkeedii sax buu ahaa sirtan aan qarinayay ayaa aniga iyada na kala geysay hadda wax walbuu dhacay siday yihiin aniga ayaa idii sheegaayo sheenaha markaa isguursanay kadib waxaan imaanay romania wiilkaygii mangalsuudka aan kuu soo dhiibay ma aragta adiga hooyo wiilkaaga waa doqon aniga wax walba waan tusay balse igama jawaabin xataa weji fiican hooyo muuse i tusin aniga haddaad waqtigaas joogi leed hooyo adigana waad xanaaqi leed kadibna waad dharbaaxi leed asaga kaalay anigoo taagan miyaad hooyada u diraysaa ilmahaygii mangalsuud caadiya maahan maxaa waaye hooyo wuxuu xambaarsan yahay aniga ducadeyda teeda kale labada qof ee isqabto wuxuu ka fogeynaa wax dhibeh iyo wax barbaleem ah marka ii imaada idinka hooyo 6 bilood kadib anaga imaanayna ee adiga aroos wanaagsan noo dhig taas lee noo sameey qoftan waa kacsantaa moogtahay wiilkaygii aroos xiisuu qabtaa jini aroosaa ku dhacay mangalsuud labada loo xiraa wiilkayga adiga doqon maa tahay laba qof oo isqabto sidee haddana aroos kale u dhigtaan waa ku jeclaan qofkii khataraata maamada dhan waa iga dhacday hooyo waxaan ku weydiinayaa familka kale sidee yihiinna waxay kale telefoon ku hadlaya halo duqa hambalyo waxaan ku hambalyaynaa arooska aad gashay mahadsanid iyaw adiga aniga waxaan hanin doonaya arooskaaga adiga inuu kugu hambalyayo ee waxaan ku leeyahay hambalyo waayhey yaa ta horta isku heshay adiga aniga aqoon ima lid miyaa waan ka xumahay anigu waxaan ahay naagtaada nin hore saaxiib u lahaa jiray ayada kuma sheegin miyaa kulay way ilowda umaleynaa balse aniga ayaa qoftaan iloobi karin maxaa yeele qof qaali waa lama iloobi karo qoftaan oo kale waa khatar waryaa mala socotaa hadalladan oo kale inaan kugu xiri karo maxaad ii xiraysaa dembiga adiga galayo anigaad xiraysaa miyaa macnahayga wax kale maa waxaad ilowda sawirada naagaha qaqaawan ee aad gadgadaysa waryaa taas anbaa kuu xiri karaa macnahayga ma fahmi anigaa ku fahansiinaya ee iimow weli waxaad ugu imaanaysaa
romaniyadii qadiimka ahayd guriga ayaad igu imaanaysaa halkaas ayaan kuu sugayaa ciwaankani waan kuu tilmaamayaa ee ha degdegin saaxiib wax walbana okay ayay noqonayaan halo soo gudub saaxiib albaabka waa kuu furan yahay soo dhawaaw guriga waa gurigaagii dhinaca midig hortaa u soco waan ku jiraa saaxiib la kulankaagana maanta runtii aad iyo aad baan uu faraxsanahay soo gal weliba hoos u soo daadeg maxaa guriga gurigaaga ha xishoonin soo dhawow soo deg maxaad sugaysaa waa caadi waxbana ha xishoonin soo soco soo sawir aad iyo aad u qurux badan maaha hadda waxa keliya aad arkaysid waa qaybtii kore qaybta hoose dad baan tahay anigu waan hayaa labtobkayga ayaan ku hayaa weliba runtaan sawirkan aad iyo aad baan u helay waa sawir keliya oo aniga qanciyo adiga waxaad doonaysaa gabdhaha sharafta leh inaad sharaf darro ku ridid taasna kaama oggolaanaya aniga saaxiib la socotaas adiga maxaad oggolaataa maxaase diidaa adiga waan ku qaanaa waxaad tahay nin aan aqaano waxaad iska dhigtaa nin sharaf leh balse aniga wax walbo aad tahay iyo wax walbo aad ka shaqaysid si fiican ayaan ula socdaa hore shaqadaada waxay u ahayd waan ogahay wax kalena maa haddii aan si fiican ku tusaya halkaan soo fadhiiso adigu waxaad haa jirtay nin footiistaa gabdhaha ayaad sawiri jirtay marka hayla yaabin saaxiib gabdhaha qaqawan ayaad sawiri jirtay kadibna shirkada shisheeye ayaad sawiradaas u gudbi jirtay waxaan kaloo la yaabanahay shirkadaha aad sheegtay mid ka mid a xataa romaniya kuma taalo taasoo xabeega darabo xataa xaaskaaga sawirkeedii intaad qaaday ayaad shirkadaas ka iibisay nin oo xataa nin cajiib leh laguma geli karo runtii anigana hooshii aad haysay isla hooshaas ayaan hadda ku guda jiraa waxbana hayla yaabin maxaa yeele waxani waa ganacsigiina dhammaad ma laha saaxiib marka waxaan u malaynayaa hadalkaan sheego dhan inuusan been ahayn oo sax yahay adiguna sidaas ayaad hadda dambiile ku tahay wax walbana waa kugu cadday karaa waana ku dacwey karaa maxaad igu dacweeyey aniga waxaas mar hore ay ahayn waan ka tegey hadda uma shaqeeyo shirkadaha aad sheegatay saaxiib taas waxay u taalaa booliiska ayaa soo kala caddaynaayo dembiga hadda inaad ku jirtid iyo inaad ku jiri jirtid aniga hooshayda maaha haddaba caddayn ayaa loo baahan yahay beentaa maaha caddayn waa loo baahan yahay caddayntaasna anigaa ku tusaya fadhiiso kafee iyo cabitaan waxaa cabtid ayaan ku keenaa saaxiib waxbana ha xishoonin guriga waa gurigaagii oo saaxiib hadda ma waxaad iga dhahda cirabka inaad tahay nin wanaagsan oo ganacsadaa oo sharaf leh oo wax dembiya aan gelin saas maa rabtaa inaga dhaadhicisid waa run dembi mari aniga wax weyn maaha inaad dembi leedahay in kale haddaa la kala caddaynaa haddaad ii aaminayna haddaan ku tusa saaxiib waxood kastana labtobkan ayay ku duban yihiin indhahaaga ayaa kuu maclina waadna arkaysaa wixii runaya wixii beena marka adiga u kaadi wax yar oo keliya waayay maxaad u baahantaa hadda ayaad iskeentay sidaan rabayna hadda ayaad fahantay rag dheh aniga runta haddaan kuu sheego aniga wax kala ma rabo wax keliyo raba adiga xaaskaaga inaad ka dheeraatid oo aniga aad igu soo wareejisid taas intaad ogolaatid aniga waad iga badbaadaysaa wax walbana okay ayay noqonayaan intaasoo keliya ayaan rabaa markay caadis ka dhigto ee ogolaa heshiiska haddii aan diidana haddii aad diidid adiga xabsiga baad gelaysaa waan ogaa xabsiga wax weyn maaha sanooyin oo keliya waayo sanooyinka waa soo dhammaysanaysaa balse waxaad ogaataa cimrigaaga inta ka dhiman waxaa dhammanin ay kugu dhacay waana sharaftaro iyo ceeb adduunyada waxay ku noolaanaysaa ciil iyo sharaftaro anigase xaaskaaga baryalaan ayaa bannaanka u helayaa maxaa yeele waa qof dumara waan sasabanayaa idhagaysu duqa adiga ma qiyaasi kartaa xaaskaaga aniga intay igu kalsoon tahay taas ma aaminsin soo maah soo bax aniga ku tusaaye runtii xaaskaaga siday igu kalsoon tahay anigaba xataa nafteeda uguma kalsooni maxaa yeele aad iyo aad ay ii jeceshahay qoftaadana waa qof aad iyo aad u wanaagsan qof la iloobi karana maaha
runtii ilaahay hadda waxaan iloobi lahay hadaladeeda macaanaa iyo shumiskeedii marka waxaan ku leeyahay aniga iyo xaaskaaga naga dhex bax taas ayaa adiga dalka ugu jooga haddii aad diididna dhexdeenna anigaa kaa saara wax weyn maaha marka waxaa kuuro si wanaag dhexdeena inaad u obaxid maxaa yeelay xaaskaaga darteed wax walba waa u samayn karaa wax walba u samayn karaa si aan u helo qoftan aniga qof la dhaafi kara maaha qof la iloobi karana maaha qofkii hal mar bartaana cimrigiisa inta ka dhiman wuu soo xasuusanaya waxaa bii dilay quruxdeeda dhaldhalaalkeeda waan dilay aniga ayaa gacanteeda ku dilay balse ismariin sirtan ayaa maalin maalmaha ka mid a dibadda imaanayso balse markaan arkay brofesorkan oo wax akhrinayo ayaan waxaan ka akhrisay indhihiisa shiinaa waxay arkayso shiinaha waxay arkaysana wax kale maaha ee waa diidiyaa ruuxaantiisa waxa ay tustay waxaas ayay shiinaha mar walba arki jirtay shiinaha waxay u malinaysay adiida inay arkayso balse ma arkayn ee mar walba ruuxaantiisa ayay arkaysay mar walbana way iska socotay oo keliya waxayna u malaysay mar walba inuu asaga la socday balse keligeed un bay ahayd aniga wax walba waan ogaay balse danta ayaa u kaliftay in aan aamuso ninkan adiida la yidhaahna shiinaa oo keliya ayaa arkaysay cid kaloo arkaysana haba yaraatee ma jirto aniga runtii adiidaa markii aan dilay waa naxay isla anigii gacanteeda ku dilay ayaa waxay la noqotay in aanan dilin aniga waan dhimanayaa balse meel fog ma tegaayo kaamana dheeraanaay gurigaaga ayaan kula joogayaa ogow adiga aniga waa naxay waa walwalay waxayba ila noqobaysaba adiidyaa aniga inaan dilin ee qof kala dishay waxaana ii soo masawirmay booliisku aniga qabtay oo i xiray taasna runtii waxay la noqotay la yaab maxaa yeelay aniga adiidyaa waxaan u dilay xaaskayga darteed xaaskayga sirteeda intaa qarinayay ayaa waxaa noqday dambiile shiinaa maxaan u sheegaa ma waxaan u sheegaa adiidyaa gacanteeda inaan ku dilay sidaas ugu sheegaa maba iga aaminaysee maxaa la adiidyaa way taqaanaa ayada anigana si ceebteeda aan u qariyo ayay danta waxay u kaliftay arrintaana inaan u qariyo waxaan qaaday meydkii adiidyaa waan jiiday kadibna waan duugay maxaa yeelay waxaan ogaa ninkan dad inuusan lahayn soo raadsanaayo anigana kadib waxaan sameeyey waan soo baxay gurigii ayaan imid dharkaygii dhiiggi lahay oo dhan waan siibay kadibna derbiga ayaan ku salaaxay oo waxaan isdhahay cid arkayso haba yaraatee ma jirto balse wax walba markaan akhriyey ayaan waxaan ogaaday shiinaa ninkaas inuu jidhkoodao dhan dhex galay oo ku shaqaysto asaga wuxuu rabay jidhkooda inuu isticmaalo balse wuxuu ogaaday katiinadda ayadu u xihan tahay inuusan waxbana ka qaadeen kadibna wuu watay oo hoteelka ayuu ku balmistay oo katiinaddii ayuu ka qaaday ninkaasna jidhkeeda ayuu dhex galay jidhkeedoo dhan asaga ayaa isticmaalayay sidoo doono ayuuna ka yeelayay ayada waxay ahayd maqana joogo waxay kologoyd habaraatee ma jirto kadibna adiidaa wuxuu sameeyey shiinaa ayuu adeegsaday wuuna kaxeeyey oo wuxuu u kaxeeyey isla meeshii aniga asaga aan ku duugay kadibna markii gaarigii la helay oo aan arkay qoryaha meesha lagu gubay anigu waxaan ogaaday adiidyaa shiinaa inuu isticmaalay oo weliba u isticmaalay si meydkiisa ay u soo bixiso wuu kaxeeyey wuxuuna geeyey meeshii aan ku duugay kadibna waxay soo saartay meydkiisa kadibna way gubtay meydkiisa anigu wax walba oo dhacaayo waan la socday balse waxaa diidanaa runta inaan sheego sababtoo ah waxaan ahay qof dilaa ah oo dambiile ah
waxaan sameynaa waan aqoon saaxib adiga sidaasaa dhihin runtii dambiilana matid dilaana matid adiga sharafta naagtaada ayaa badbaadisay nin walboo naag qabanay sidaana la doonayaa inuu sameeyo adiga dambiil matid shalay sidii ninkaas aan naagta ugu soo dhacsatay ayaa la doonayaa maanta nina ugu soo dhacsatay aa u badbaadiso oo nolosheedana dib aa u soo celiso aa u dhista adiga saaxiib aniga waan guuldaraystay sheenaa ninkaas haddaanan ka badbaadin asagaa kaxaysanayo haddii aan ka badbaadiyena waxay ogaanaysaa sirteeda iyo sababtaa ninkaas u dilay hadhowna way iga dheeraanaysaa waxaan sameeya ma aqaano igaraal noqo waxaan kugu dhaxaa o dhan anigaas sababteeda lahaa waa ku baryaa qalad weyn baa kaa galay si walbay u ahaato inaan ku badbaadiyo waan ku qasbanahay ballan waayo waa ku badbaadinayaa nafsadeeda xataa aan ku waayo waa ballan inaan ku badbaadiyo shiinaha ee igaraal noqo hal mar iska kee cafi horta qoftan sideeda ma arkinoo jinniga ku jiro jinni yar ma aha jinnigana sidiisa maadooyin isku baxaa jirtaa hadda buuggan ma arkinoo waxa ku qoranaa loo akrinaa buuggan markii la akrihayn waxaa loo baahan yahay macnaa inaan la kala joojinin hal xaraf haddii laga tago haddana koob inaa lasoo bilaabo laha wixii waa burburaa marka waxaa la rabaa qof haddii isgafa haddaa qof kale inas hore ka wadaa la rabaa oo as dhammaystiro qoftan markaas jinnigan waa ka baxaa nolosheeda iyo caafimaadkeeda waa soo naqahaa iidana waa la xirxiraa waa la fadhiisinaa waayo markii lagu akhriyahayo waa boodboodaysaa malaay camalad u boodboodaysaa marka waxaa loo baahan yahay waxaan sida waajibkiisa in loo qabto waa wadayna akhriska aan ku bilaabayna maxaa kaloo suubi lahayn ilka caddoo dheer ma ana igu taala lagu akhrina waxaan dhan ma arkino meela yeelanayn jinka meeshaas ka soo baxaya isku naqaahaa makasino waxaan in lagu dadaala la rabaa marayaal oo badan oo cadcadna ma arkino waa lagu xirxiraa waa lagu duduuba iyadoo dhan ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एताचिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं ये निदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्पाच पर तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् या स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्य दीक्षा शुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परातिपरम् कालेन पंचत्वमितेषु कृत्सनशो यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषिया पदं विदु जन्तु पुनकोरतिगन्तुमेरितुम् यथा नतस्य कृतवीर्विचेष्टतो निरीक्षभो यस्य पदं सुमङ्गलम्
اسبتالكي قبل وتعبانه لا عرف مايا أنا اسبتال مرة ما ينبيع أنا أسكت فلنا أنا تعبانه وراني ما بقى هذا كله جوجا أرد قاد وركز كبحي أنا في عنه aniga soo hore kuguma sheegin sirtaan aad qarinaysay labadeena inaan ku kala fogaa karno hadda waa kana maxaad samaynaysaa ninkaas waa i wadanayaa asaga wuxuu geysanayaa meeshuu maya waa been sidaas hadii macaani cidku wada karto ma jirto intaan noolahay anigaa ku leh anigaa ku badinaya waa balan ma kala tegana labadeena been baad sheegaysaa قال هذيك تقنيه ما حد ملسي سنن كو دافيا ما بكاي هرايا ورهله موقت هذيك ان اد انيغ يدشي waxay dishin wax kala ma sirtaada si aad u qarist ay aniga yidhi taasna kama ogolaanay aniga kama haraayo waan ka guulaysanaya adiga aniga hadda kor waad qiyantay oo waad iga xanaajisay waxaan u kaliftay inaad gacan ku dhigay iga dhigtid maanta ayaad iga guulaysay runtii balse maanta anaga ka guulaysana been baad sheegaysaa maxaad tiraysaa maxaad qaadi kartaa aniga awood ba magid awoodaas xagee baad ka keenaysaa ii sheeg awoodaas ka keenaysaa ma balihid ilaane
ها أود ولا أود أصلا جعلك أيا إسي جعلك يقرب تاجن بين بتشيك الساعة جعلك أتكاد لساتكور كتيرة أيان كفوري وأنا وديك قبوسي جعلك أتشيك ساتكور لك أيان كديجي وأنا وديك قبوسي جعلك أتشيك ستجرك أيان لحقله سيدا طولنا واقيا أديكنا وحواديك قبوسي مركا حكيبتك كيني سابود ما أنت عنيك أديك وحيك قبنيسي runtii waxaa taa wax ma tare awood ma baliyid aniga aad iga hortagtid ama baad iska celisid eeniyow horteeda ka leexo hooyadii hadda kor waxay tiri qofkii qaladka gala waa la ciqaabaa balse qofkii qof aad jeceshahay qaladka gala qofkaas hal ciqaab oo kaliya looma ciqaabee laba mar ayaa la ciqaabaa anigana maanta adiga waan ku ciqaabayaa weliba ciqaabta aan ku ciqaabayo waa mid weliga aad arkin hal mar oo kaliyana kuma ciqaabayee كل مرة أنا كو عقابة يا وبلان فيرسو أبا واحد وغاني ساديدي إنو يهنين رقا أو كيسية أو كارتيلي ورهير عنيقا ناكتا نبعضو حوستا انكا قلاواني هيرا إلا انكا براي هابيراتي مجرتو بالفير هاتا ناكتا هذا سيدا عن عنيقا أولا باشالا ما عاديك قادي كرتا هذيقا إنا تفير سموهي ورهير هذيقا وانكولا يابي وحتى دقن ما عاد عديق مريد مياه ضمير مريد مياه ما عاد عمس انت اي شيء ورانيك بس كاي تاغنا لها نيهو وين حناقي لها ناكتان حنتانا ما بدا فين وين دلي لها marka maxay tahay naag adiga nin kale ka raacay sababta aad u jeceshahay ama sababta aad u sugaysid maxay tahay rajada aad ka leedahay war naagtaan oo kale waa la dilay lama dhaafo ka waa laga siiyaa ee waxaan ku leeyahay dhaqso dhiig isku yeel damir isku yeel dil naagta maya taas ma samayn karo aniga naagteedu u jecelna ma nici karo mana dili karo mana dhacaysa taasoo kale inaan sameeyo aniga maya waa inaan naagteed badbaadiyaa waan badbaadsanayaa nafteeda baan ku waayey maya waa inaan naagteed badbaadiyaa
maxaad ka fakaraysaa meeshaan markaan imaanaynay baraf ayaa ka buuxay hadda barafkii oo dhan haa ma dhalaalana ii sheeg haa barafkii oo dhan wuu dhalaalay